abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye liibaan oo kula hadlayay bulsha TV hotel Bacaad ee magaalada Hargeysa markuu ku horeysay waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay inay ku dhaqaaqeen arrin uu ku tilmaamay inaan ahayn mid sharci ah kaasi oo uu sheegay in xisbigaasi ay u adeegsadeen sifo khaldan ka xogta dadweynaha isdiiwaan geliya waa sida uu yidhi waxaanu liibaan xisbiga mucaaradka ee wadani uga digay arrinkaasi sidoo kale waxa uu komishiga doorashooyinka ugu baaqay inay cadeeyaan halka uu xisbigaasi ka keenay xogta dadka isdiiwaan geliyay liibaan xogayaha abaabulka wacyigelinta garabka dhalinyarada heer qaran xisbiga kulmiye oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi marka la yiraahdo xogta muwaadiniinta isdiiwaangelisay ee isu diiwaangelisay doorashada inay u codeeyaan waxa mas'uul ka ah kaydintooda iyo ilaalintooda iyo xafididoodaba komishanka arrinta xeer baa ka jira loo marayo oo in xogta sida loo ilaalinaya xeer 7/2007 la ansixiyay ee xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha sidoo kalena kaabis xukumada lagu sameeyay bishii 12/13 2014 xeerkaasi wuxuu qodobkiisa 14 sheegaya inay xogta mas'uul ka yihiin xogta kaydinteeda ilaalinteeda farqadiisa koowaad ilaa ka shanaad sifaha loo ilaalinayo oo ay tahay hanti qaran oo mas'uuliyad ka tahay komishanka sidaa darteed waxa weeyaan qodobada ka dhalan kara xogta hadii la helo ay sheegayaan oo waxa weeyaan inaan wadal shay loo gudbin karin in hadii la xado ama sifo kale cid u isticmaasho ama la bixiyo qofkii arrinta ku kaca xabsi uu mutaysanay 3 sano ilaa 5 sano sidoo kale waxay qodobkaasi sheegayaan farqadiisa ay tilmaamayaan in muxuu haayay hadii la bixinayo lagu bixin karo sifo muxuu haayay sharciga waafaqsan oo arrin amni la xidhiidha taana ay xukumi karto maxkamad awood u leh sidaa darteed waxa horta tuhun ka taagan yahay xogtan muxuu haayay muwaadiniinta la garaacayo halka xisbiga wadani ka keenay taa waxaan warta farayaa komishanku inuu baarid ku sameeyo waayo waa mas'uuliyad qaran sidoo kale waxaan arkay madaxa muxuu ahaay campaign-ka xisbiga wadani mudane xamse khayre oo leh awood dadban teknolojiyada ayaanu ka faa'iideysanay xisbiyahan xisbiyada ka wada faa'iideysan karaan laakiin mas'uuliyad gooniya ba dhammaan xisbiyada ka saaran maadaama codka muwaadiniinta tahay hanti qaran tahay ammaanka u tahay diiwaangelintan waxay wax walba kaga duwaneed waxay leedahay farihii indhihii ayaa laga qaaday muwaadinka sidoo kale muxuu ahaay qofka caaqilkiisii halku degan yahay da'diisii jinsiyadiisii wixii oo dhan marka wax weeyaan waa arrin security oo ammaan ay koobsanaysaa marka waxaan arkay xaafado badan iyo dad badan oo la soo garaacay oo ah dadkii diiwaan gashanaa sidaa darteed arrintaasi waa arrin ku gafaysa kana hor imanaysa xeer 7/30/2007 ee xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha ay horta toos uga hor imanaysa liibaan madaxa ololaha xisbiga wadani oo la hadlay bulsha TV wuxuu sheegay in xogtaasi ka heleen dadweynaha degan xaafadaha magaalada Hargeysa ee la shaqeeya xisbigaas ama wakiilada haday ay ku heleen maxaa ku jaban horta markaynu wax qiimeynayno waxa weeyaan dad wada aqoon laba inuu nahay waxa la eegayaa muxuu ahaayay marka xog la sheego sifaha lagu heli karo waxa weeyaan inta guri ay la soo xidheen inta qof ay la soo xidheen ma jirto qof inuu kaarka qaatay la weydiiyo telefoon laga qoray ama guri inta la tagay kooxo wadani ka socdo oo hawsha u qaabilsan inta guri tageen ay soo ururiyeen ku dhayn qof baatiin ma isdiiwaangeliseen imsaayid ka qaatay ma jirto sidaa darteed qofkii aan muxuu ahaay la weydiinin telefoonkiisii la weydiin inuu kaarka qaatay aan la weydiinin marka la soo garaaco halkii xogtan laga keenay Luqmaan Maxamed Faarax bulsha TV Hargeysa